إثيوبيا ما أنت حالة waxay maraysaa in xasan sheekh maxamuud u dhoofay Addis Ababa si uu badii iyo berigii Soomaaliya kula heshiisay ugu wareejiyo dawladda cadawga ah ee Ethiopia umada Soomaaliyeed way iska helmaan badan tahay inta aanan faahfaahinta barnaamijkan iyo safarka xasan sheekh maxamuud u gelin waxaan rabaa horta 2 daqiiqo kaliya inaan idin xusuusiyo erayadii beydka ilaahay uu ka yiri xasan sheekh maxamuud xilliga ay taagneed xansarada badda erayadaas oo ahaa kuwo umada Soomaaliyeed lagu marin habaabinay marka bal muuqaalkan 2 minutes ila daawada si maskaxdiinu update u noqoto dawladda Itoobiya ee dariska aan nahay waxay sheegtay gob ma aydin sovereign ma aydin idin la tashameen idin warsameyn waxa samaysateen oo adag waa dawladeena aad leedihiin dawlad ma aha dhulkaana nus ana qaadanayo walaalaanahay darisana nuskan waxogaa yaa ma aragtay ha shalay daris ma aan noqon waligeena meeshaan kala deganayn haddii maanta dhul la isku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul lagu sheegato ma aha nagumana sheegan karto naguma sheegan karto intaan ka sheegnay cadu waa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa intaba waa isaga filannaa ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacan lena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filannaa waana isaga filnaanayna marka niman muxuu ahaay gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeennii nusaan qaadanayaa leh shacabkeennina waa kala qaybinaya nusna waa saasaatihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay waana iska celi jirnay weligeen ka fac waana la yaqaan maanta waa iska celi dadkii aan nahay ismaanaan bedelin kuwii shalay ilmahoodii aan nahay waa iska celi jirnay waa iska caabi jirnay waana ka guulaysan jirnay waana ka guulaysanaynaa waana iska caabinaynaa dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ha ku kadsoomina walaalaan nahay darisaa idinla nahay saanaan nahay wanaaga soo keen jiro kana soo keen jiro mugaansannaha wanaag soo keen jira mugaad xeradeeda soo gasho oo xoolahayga qaar inaad la baxda aad rabto oo dhulkayga qaar inaad goosato aad rabto oo shaatiga inaad iga siibto waa ka qaawina xagga taa saaxiib maahin walaalana maahin Itoobiya waxaan leenahay dhul ay leedahay waa weyn yahay oo u fiican yahay waa u barwaaqaysan yahay ha ku ekaato dhulkeeda ha ku ekaato waxay la tahay maskaxdiidu inay update noqotay oo aad soo xusuusateen waxyaabihii umada Soomaaliyeed xasan ku aamintay kadib markii beydka ilaahay intuu soo istaagay uu taabtay nabaradii saxda ahaa oo uu yiri Itoobiya waa dal muxuu haytay andarisnahay laakiin weligeen colaadu naga dhaxaysay dagaal horaana dhex maro noogomay adkaan maantana taaka dhulkeena kamid ma qaadan karto waan iska celinaynaa waa cadow erayadaas waxay ahaayeen erayadii umada Soomaaliyeed qalbigeeda gelisay madaxweynaha hala garab istaago dagaalku dhab buu ka yahay hase yeeshee maanta xasan sheekh maxamuud uu baxay magaalada Kampala ayuu ku hormarayaa Kampala markuu tago halkaas wuxuu kula shirayaa ninka la yiraahdo Yoweri Museveni kadibna wuxuu u gudbayaa Addis Ababa oo casuumaad uu yani ugu fidiyay baa la yiri Abiy Ahmed meesha su'aal baan ka weydiinay gabar aad dhashay in ragaho kasto Soomaaliya oo daawanaya su'aashan weydiinaya adigu gabar aad dhashay haddii laga soo doonto ama xasan laftirkiisa baa weydiin xasanow jahan xasan sheekh haddii maanta la soo doonto oo ninku yiraa madaxweyne waxaan ka rabaa gabar ma adiga gurigiisa ugu tagi lahaa oo dheelay haye gabadheed adiga rabtay si aan kuu siiyo waa ku imaanaya bas waxaad oran lahayd waa yahay isu keeno xeerkii la soo mari jiray Soomar meesha joogana waad garanaysaa waxay la tahay xasan sheekh iyo nin kasta oo aabba Soomaaliyeed ah in uu garanayo marinka saxda ah qofka wax raba baahanaha waa inuu isagu yimaado haddii marka xasan sheekh maxamuud uusan gabadhiisa u quurin inuu nin la raadsado
oo ninkii gabadha ka soo doontay uu maxuu ahaytay isagu u tago xasan soomaaliya siduu ugu quuray inuu safriyo bad iyo berri bay Itoobiya doonaysa maraakiib dagaalay samaysatay warkeedu waa cad yahay siday ku dhacday xataa haddii Itoobiya wax la siinayo in iyada la aado tusaale kala qaado hadda kor waxaa jira heshiis hordhac ah oo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya kala saxiixdeen xilligii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo bal xusuusta xilligaasna Abiy Ahmed oo futashaari qaba xamar ka soo degay maslaxa cabdullaahi farmaajo wuxuu ka degay Addis Ababa waxa weeye Itoobiya iyo raactimaday baahanay ahayd waxbaan idinka rabnaa dekada naga kireeya gaajaan haysa waxa la yiri haddii aad rabtaan wax kala soo degtaan annagana dhaqaalan ka helaynaa adinkuna dee danbaa idinku jirtay waayahay baahanayaal bay ahayd laakiin maanta waxaan aragnaa xasan sheekh maxamuud oo Itoobiya sidii heshiiskii loola dhamaystiran Addis Ababa tagaale waxa weeye marka horta waad garan kartaan odagaasu waxa weeye in uusan muhiimadda dalka iyo dadku leeyahay uusan garanayn gabadhiisa wuxuusan u quureyna maanta oo qaranka Soomaaliya u quuray waayahay aynu ku laabana marka ujeedada wixii dagaal la soo waday oo dhan horta maxay ahayd aniga markaan baashan kolkoleed gareeyay laba arrin u baa ay soo baxday kow in waxaan oo dhan mushkilad la abuuray ay ahayd oo xasan sheekh maxamuud iyo maxuu ahayd Ismaaciil Cumar Geelle iyo ninka la yiraahdo Sheekh Muuse Biixi Cabdi ay isku ogaayeen arrinka maadaama arrin weyn oo muxuu ahayd buuraha ka culus uu yahana loogu talagalay intaasoo face in la marsiyo si dadka tartiib loogu geliyo tartiib sababtoo ah hal mar lama oran karin Itoobiya muxuu ahayd bad la siinaya marka waxaa jiray heshiiska Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi waxaa ka horreeya kulan madaxweyne xasan sheekh madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Biixi ku dhex maray magaalada Jabuuti isla kulankaas ayuuba ka sii baxayba ninka la yiraahdo Sheekh muxuu ahaa Muuse Biixi Cabdi kulankaas ayuu ka safray deedna waa ka Itoobiya heshiis la galay marka waxaa suurtagal ah in waxan wax iyagu ay ku heshiiyeen ay ahayd oo Itoobiya in muxuu ahayd bad iyo berriba la siiyo lagu heshiiyay laakiin la yiri adigu bilow nin baa yiri garta buurta saar ama hebel ka deji waxa weeye baasha marka in ninkaani buurta saaro iyaguna ay ka dejiyaan in lagu ballamay jid waay oo waxa kale oo dhan oo la wada ay been ahay ummadda Soomaaliyeed tartiib loo gelinay ama qodobka labaad waxa weeye in ninkani uusan kala garanayn xajmiga iyo muxuu ahayd arrimo siday u kala culus yihiin oo caadifad iyo dagaalkii yaraaya madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweyne loo kala ah dhexmar khilaafka ka dhaxeeya isaga Axmed Madoobe inuu ninkan halkaas la galay oo hal mar intuu ka tanaasulay muxuu ahayd qarannimadii Soomaaliyeed uu Itoobiya muxuu ahayd hoostagana waa suurtagal labadana mid kasto ay tahay xasan sheekh maxamuud dalka iyo dadka kuma anfacay dalka iyo dadka Soomaaliyeed xasan labada mid ay taalo kuma anfacay hadduu kala garan waayay khilaafka yar Axmed Madoobe kala dhaxeeyay iyo Itoobiya waxa weyn ay qaadanayso midda Soomaalida u muhiimsan iyo haddii uu khaa'in ahaa oo waxaas uu masaajidka ka sheegayay iyo xisaarkii uu sheegayay in Itoobiya kula samaysay Addis Ababa Axmed Samaraka isnaaciya isoo gurmaday waxaas oo dhan ay fake ahaayeen arrinkan uu iska ogaana waxa weeye hadda khaa'inul wadan murakkab ah weey khaa'inul wadan buu dhaafay waxa weeye marka ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay digtoonaato dalkeenu hadduu waayo dowlad ka taxadarta madax banaanadiisa shacab wuxuu leeyahay dalkan soo difaacan jiray iyadoo haykalka dowladeedba uusan jirin dalkan 1500 sano taariikhda inta la og yahay in ka badan ayaa Itoobiya laga difaacay reer miyi iyo xoolo dhaqato Soomaaliyeed buu dadku ahaa kuwaasaana warankooda iyo gaashaankooda ku difaacay Itoobiya iyagii ayaana nool marka waxaan leeyahay haddii dowladnimada casriga ah ay rabto inay god ku rido dalkeeni shacab Soomaaliyeed oo taagan waa inuu jiraa oo shalay sidii uga difaacan jireen muxuu ahayd cadawga Itoobiya dalkooda uga difaacan jireen waa shacabka Soomaaliyeed uu istaago xasan sheekhna ninkii shaki ugu jiray inuu yahay khaa'inul wadan maanta ha ogaado hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi